ku dhawaad 10 ruux ayaa ku geeriyootay weerar ay si wada jira u wada fuliyeen ciidamada sida gaarka ee Mareykanka iyo sidoo kale ciidamada Soomaaliya waxaana weerarkani uu ka dhacay deegaanka Bariir ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo lagu geystay dilka dad shacab ah gaar ahaan dadka ku dhaqan halkaasi waxayna dadka geeriyooday u badnaayeen dad beeraley ah oo xilligaasi ku sugnaa deegaanka Bariir ee gobolka Shabeellada Hoose dadka ku geeriyooday ayaa meedkooda waxaa loo soo qaaday isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxaana isbitaalka soo buuxdhaafiyay ehelada dadkii halkaasi lagu dilay dadka la dilay ayaa tiradooda waxa ay gaaraysay 10 ruux waxaana kaaga muuqanaya dhibaatada ka soo gaartay weerarkii ay sida wada jirka u wada fuliyeen ciidamada Mareykanka iyo sidoo kale kuwa Soomaalida waxaana halkaasi warbaahinta kula hadlay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Shabeellada Hoose Cali Nuur waxa uu sheegay inuu ka xun yahay dhibaatada dawladda Mareykanka ay u geysatay dadkaasi oo uu sheegay inay ahaayeen gabiyaanba dad beeraley ah oo xilligaasi halkaasi ku sugnaa wuxuuna sheegay in marnaba la aqbali karin in dad shacab ah oo beeraley ah xasuuq loo geysto gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose xagga amniga inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka hore waxaan ka tacsiyadeynaynaa runtii dhacdadan xanuunka badan ee ku dhacday dadkan shacabka ah ee beeraleyda ah ee iyagoo jooga guryahoodii lagu weeraray intaa kadib tacsidan kadib ka maamul ahaan annagu waxaan caddaynaynaa dadkaas la laayay inaanay ahayn shabaab inaanay ahayn dad oo dhibaato waday inay ahaayeen dad shacab ah sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha beesha Habargidir Abuukar Cusmaan Abuukar Ganay waxa uu sheegay in dhibaatadani ay ka xun yihiin oo ay dawladda Mareykanka ay u geysatay dadkaasi shacabka gaar ahaan dadkaasi beeraleyda wuxuuna ugu baaqay dawladda Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan arintani ay wax ugu qabato wuxuuna sheegay in la duugi doonin xitaa dadkani halkaasi lagu dilay waxay ahayn dad beeraley ah waxay ahayn dad xoogsata waxa laayay ciidamo sababta ay u laayeen aanan garanay dalka ma ahan dal la heesto dalku dawladda ka dhisan waxaan leenahay baarlamaan waxaan leenahay xukuumad gole wasiiro waxaan leenahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ciidamada ay adeegsadaan oo kaashadaan oo dawladda Soomaaliya amni ay noo sugayaan ay u hayaan oo u kaashadaan waxay horay maalin kasta laayaan dadka Soomaaliyeed waxaana sidoo kale goobta ka hadlay ugaas Cabdi Daahir oo kamid ah dadkii halkaasi ku sugnaa wuxuuna sheegay in dhibaatadaani ay soo laabatay dawladda Soomaaliya looga baahan yahay in si degdeg ah ay uga jawaabto ku dhintay sabab la'aanta waxa weeye ilaahay weyna waaxid ah naga samar siiyo bedelkooda qeyr qabana Allah na siiyo inta kadib aniga magacaygu ugaas Cabdi Daahir ugaas Nuur la yiraa waxaan odaygoodii ahay dadka meeshan daadsan oo Soomaaliyeed ma aqbali karno maalin walba sida odayaalka iga horeeyo uga hadleen sabab la'aan inta dadka guryahooda loogu tago lagu laayo haddana lagu andacoodo shabaab baan layna Mareykankii waxay ku soo jawaabeen annagu shacab ma aanan layna shabaab baan layna shabaab ma aynaan layn shacab ilmo iyo caruur iyo waayeello iyo dad beeraley iyo beerahoodii tabcanayay oo aad xogagaan u ahaydeen oo shalay idinla joogay oo idin sheegay inay beeraley yihiin meesha degan yihiin oo aad xogtooda kaamil ahaydeen inaad mid kamid ah dadkii goobjoog u ahaa markay wax dhacayeen oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyay dhibaatada halkaasi ka dhacday waxay ahayd Mareykanka weerarka soo qaadeen kamid ahay dada meel naga dhameeyay haddii Soomaaliyeed nahay gaalka oo cadaanka ee Mareykanka dhamaay oo naga beeraley nahay waxa uu ka galabsanay milihi shabaab milihi warilay milihi naman beeraley saf maana falatay aniga meesha waxa uu joogi beer oo shirka ah macnaha beertaas shacab dhangaas hadda hooli joogdo hoolaliye degan shacab degan
وريلي ما جوجدو